أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقا وعنتر السيد حسين. waxaan soo wadnay casharadii aan uga hadlaynay excel 2013 oo ahay casharo aan ku baraninay excelka wuxuu yahay. casharkeena maanta waa casharkii lixaad. casharkeena maanta waxaan ku baranaynaa haddii ilaahay yiraahdo number format, sida nashqadeyn nambarada. waxaan rabnaa inaan si gaar aan u barano qaabka nambarada looga dhigi lahaa currency amba lacag dollar amba pound waxay ahaataba amba yen, si aan uga dhigi lahayn nambarada aan meesha aan ku qoranay. dabcan waxaan rabnaa inaan barano nooc kale oo number formatka oo ah accounting formatka. qaabkee ayaan nambarkeena ugu ekeysiinaynaa accounting formatka. sidoo kale waxaan rabnaa inaan barano percentage format, qaabka percentage ahaan aan uga dhigi karno boqoley nambarada meeshan aan ku qorayno. waxaan rabnaa inaan barano sida aan ugu sameyn lahayn wax loo yaqaano border, xadad sidaan ugu yeeli lahayn seelasha aan wax ku qoranay ayaan baranaynaa. ugu dambeyntii waxaan baranaynaa sida aan uga qaadi lahayn borderka iyo sidoo kale number formatka aan ku sameynay nambaradii. haddaba haddii aan imaano excelka, inta waxaa noogu yaalo saa ujeedaan table yar ayaa noogu yaalo. qaybtan nambarada noogu qoran yahay waa qaybta lacagta waaye, waa balancega waaye. saa ujeedaan nambaradani wax nashqada ma laho oo sidii aan u qornay ayuu u qoran yahay. oo saa halkan ugu jeedaan home groupka, number groupka saa ugu jeedaan meeshaan general ayaa ku qoran. general means nambarka markuu caadi uu yahay waaye, oo uunan lahayn waxba format uusan lahayn, waxba nashqada uusan lahayn. haddii aan rabno marka in aan u sameyno wax loo yaqaano currency, haddii aan rabno in aan u sameyno oo calaamada dollarka aan ka muujino, haddaba waxaan u sameyn karnaa qaabo badan ayaan u sameyn karnaa. oo number groupka ayaan imaan karnaa, fanaxda ayaan furaynaa oo waxaan taabanaynaa currency ayaan taabanaynaa. sidoo kale waxaan isticmaali karnaa wax loo yaqaano number format dialog box ayaan isticmaali karnaa oo meeshaan fanaxdaas ayaan ku dhifanaynaa. amba keyboard shortcut ayaa jiro oo control 1 ayaan taaban karnaa. control 1ka ayaan waxaan ka isticmaalaynaa waxa loo yaqaano currency-ga ayaan ka isticmaalaynaa, category-ga amba qaybta currency-ga ayaan isticmaalaynaa. haddaba waxaan u sheegaynaa decimal placeska amba decimal point-ga aan rabno inuu laba yahay. 0 decimal point waan sameyn karnaa. meeshaan sambalka saa ujeedaan waxa ayaa isbedelay. decimal point 3 markaan ka dhigo 3 decimal point, markaan 0 ka dhigo 0 ayuu noqonaa. 2 haddaan ka dhigo, dabcan meeshaan sambalka waa calaamad ka muuqanayo. ma dollar aan u baahannahay, ma calaamad kale ayaa u baahannahay. calaamadaha dhan intay ku jiraan oo caanka ah, dabcan ilaa poundka ilaa yenka ilaa wax kasta ayaa ku jiro, ilaa jabaniiska lacagtooda wax dhan wuu ku jiraa. dabcan haddii aan u baahannahay inaan waxba calaamad kasoo muujinin dhan ayaan taabanaynaa. saa ujeedaan calaamad kama muuqanayo. haddaba haddaan dollarkan ku dhaafo, haddii nambaradan uu ku jiro number minus uu ku jiro, dabcan numberka oo negativeka qaabka aan rabno ayaan u muujinaynaa. okay ayaan taabanaynaa. dabcan habkaas waa u sameyn karnaa. control z haddaan dhahno, waxaan isticmaali karnaa keyboard shortcut ayaan isticmaali karnaa oo currency-ga aan u isticmaali karnaa. keyboard shortcutkaas wuxuu noqonayaa control shift 4 ayuu noqonayaa. dabcan kaas ayaa wuxuu noqonayaa currency-ga ayuu noqonayaa oo habkaasna u sameyn karnaa anagoo isticmaalana keyboard shortcutka labaad. haddii aan imaano qaybtan, haddii aan imaano oo accounting formatka, dabcan nambaradan waxaan ka dhigi karnaa qaab accounting format ayaan ka dhigi karnaa. dabcan meeshaan ayaan imaan karnaa, kan ayaan ku dhifan karnaa, amba inta ayaan furaynaa accounting ayaan ka dhigaynaa, amba control 1 ayaan taabanaynaa. dabcan accounting ayaan imaanaynaa, accounting formatka ayaan okay ku dhahaynaa. haddaba saa ujeedaan farqiga u dhexeeya currency formatka iyo accounting formatka wuxuu noqonayaa currency formatka dollarka wuxuu ku dhegan yahay, numberka ayuu ku dhegan yahay. dabcan accounting formatka dollarka kuma dhegana, numberka aad ayuu ugu fog yahay, space ayaa u dhexeeyo. dabcan farqiga u dhexeeya saas ayuu noqonayaa. haddii aan fiirino kasoo qaadba cantar sayid xuseen, dabcan waxaa noogu yaalo format ayaa noogu yaalo, waa currency format ayaa noogu yaalo. dabcan excelka gudaha excelka numberkani saan uguma save garaysno oo uguma keedsano saan. dabcan haddii aan fiirino formula barkaas, saa ujeedaan kunka wuxuu ugu jiraa excelka gudihiisa, wuxuu ugu jiraa sidaan ayuu ugu jiraa. laakiin wejiga sare ee excelka oo ah meesha annaga aan u jeedno oo aan arkayno waxaa nooga muuqdo calaamad dollar ayaa nooga muuqdo, coma ayaa nooga muuqda, point ayaa ku jiro oo decimal pointiga 00 noogu yaalo. haddaba waxay noqonaysaa marka aragtida kore sidaas ayaan arkaynaa, laakiin gudaha markaa fiirino numberka waxaa ku jira number caadi ayaa ku jiro.
saa ujeedaan decimal pointiga waan yaray karnaa oo control 1 ayaan dhehaynaa oo number format dialog boxka marka soo baxo meeshii hadda aan soo aragnay ayaan ka yaray karnaa amba waxaan isticmaali karnaa number groupka ayaan isticmaali karnaa oo home tabka meeshaan ayaan ka yaray karnaa waxa loo yaqaano maxaa la dhahaye decimal pointiga haddii aan u baahanahay inaan calaamadan maxaa la dhahaye dollarka aan ka qaado oo sidiisa hore aan kusoo celiyo waxaan isticmaali karaa number groupka waxaan taaban karaa generalkaas ayaan taaban karaa amba keyboard shortcut ayaa jira oo ah control shift tilda dabcan tildada wuxuu ku yaalaa number 1 dhinaciisa bidixda ayuu ku yaalaa calaamad yar waaye amba escape-ka ayuu ka hooseeyaa control shift tildagaas ayaa isticmaali kartaa si aa uga dhigtay general dabcan kana sidaan kuu sheega waaye oo formatka wuxuu ka muuqanayaa selka ayuu ka muuqanayaa laakiin gudahaas aa ujeedaan calaamad kale ayaa ku yaalo gudaha waxa waa numberka caadiga ayaa ku jiro haddii aan highlight gareeyo oo aan ka dhiga general anuu isticmaalaya markaan muuska fanaxdaas ayaan furayaa general ayaan ka dhigayaa sida caadiga ayuu noqonayaa marka qaarkood waxaa laga yaabaa in aan u baahanahay in aan ku dari karo waxa loo yaqaano fanaxdaasi oo numberka markuu ka badan yahay 3 number markuu ka badan yahay fanaxdaasi ayaan ku dari karaa oo ah koomadaas ayaan ku dari karaa koomadaas aa ujeedaan kunka wixii ka dambeeya oo 3 number wixii ka dambeeya dabcan wuu sameynayaa haddii aan kan ka dhigo 12,500 haddii aan ka dhigo dabcan wuu sameynayaa oo wuxuu gelinayaa wax loo yaqaano koomada ayuu u sameynayaa haddii aan imaano percentage formatka haddii aan imaado percentageka dabcan qaabo badan ayaan u qori karnaa laakiin qaladka ugu badan ee dadka sameeyaan waxay noqonaysaa qofka markuu rabo inuu 2% oo qoro dadka qaar waxay sameeyaan laba ayay qorayaan kabacdi number groupka ayay imaanayaan meesha ayay furayaan dabcan percentage ayay ka dhigayaan waxaa meeshaas ka muuqda inuu yahay 200% asagana qofku wuxuu rabay inuu qoro 2% inuu qoro u baahnaay taasi waxay noqonaysaa marka qalad qofka ku dhacay qaabkee marka selka ugu qori karnaa percentage okay qaabo badan ayaan ugu qori karnaa qaabka ugu horeeya 2 ayaan qoraynaa marka 2 qorno inta ma taabanayno okay shifty waxaan taabanaynaa okay 5 ayaan taabanaynaa oo saa ujeedaan markaa isticmaalaysid keyboardka maxaa la dhahaye laptopka ka isticmaalo kaliya ka isticmaalo camal waa shifty 5 ku ana taabata calaamada percentage-ka raacsiisa haddii aad isticmaalaysa keyboardka caadigana dabcan sida caadiga u isticmaalaysaa enter ayaa taabanaysaa dabcan 2% ayuu noqonayaa okay qaab kale oo qori kartid waxay noqonaysaa okay decimal pointiga oo 2% waa 0.02 waaye intaas markaa qortid ayaa waxaa imaanaysaa generalka ayaa imaanaysaa dabcan waxaa ka dhigaysaa percentage ayaa ka dhigaysaa oo 2% ayuu qorayaa qaab kale waxaa jira oo aad u sameyn karta oo ah selka ayaa waxaa ku sameynaysaa format wax loo yaqaano waa sii naqshadeynaysaa oo selka san waxba ku jiran ayaa waxaa ku qoraysaa dabcan waxaa ka dhigaysaa percentage ahaan ayaa ka dhigaysaa saa ujeedaan selkani general waaye laakiin selkan hadda aan ka dhiga wax loo yaqaano format aan ka dhiga percentage aan ka dhiga oo 2 ayaan ku qorayaa markaa 2 ku qoro asaa percentage soo qabsanaya inta haddaan dhaho 2% ayuu haystaa okay haddana sel kale ayaa performat aan ka dhigaynaa sidoo kale waxaan ku qori karnaa 0.02 ayaan ku qori karnaa oo selkana uu performat ayuu noo yahay asagana 2% ahaan ayuu u qabsanayaa oo qaababkaasna waa uga muujin kartaa selka percentage-ka markii aad ku qoraysid percentage aa u baahantahay inaad ku qortid qaybta ugu dambeysa oo cashirkeena waxaan rabnaa inaan ku barano dabcan borderka ayaan rabnaa inaan ku barano si marka aan tablekan aan u highlight gareeyo waxaan isticmaalayaa left click ayaan isticmaalayaa anuu hay ayaan waxaan ku sameynayaa waan ku highlight gareynayaa qaab kale aan ku highlight garey kara ayaa jira oo ah wax loo yaqaano control asterisk ayaa isticmaalayaa haddii aad isticmaalaysid keyboardka caadiga control asterisk ayaa taabanaysaa haddii aad isticmaalaysid keyboardka laptopkan waxaa isticmaalaysaa control shift 8ka korkiisa ayaa waxaa ku yaala calaamad asterisk ayaa ku yaalo oo aan inta badan aan u isticmaalna ku dhifashada okay calaamadaas ayaa isticmaalaysaa calaamadaas ayaa waxay sameynaysaa in ay highlight gareysa ayay sameynaysaa tableka oo dhan intaa kadib ayaan waxaan isticmaalaynaa font groupka ayaan imaanaynaa fanaxdaas ayaan furaynaa okay borderka nuuca rabno ayaan ka dooranaynaa haddii aan u baahannaha border badanna meeshaas hoose ayaan ku dhifanaynaa okay qaab kale waxaa jira u dooran kartid oo keyboard shortcut ah oo control 1 ayaa taabanaysaa waa number dialog boxka ayaa soo baxayo meeshaas ayaa ku dhifanaysaa borderka dabcan border badan ayaa ku soo baxayo haddii aad u baahan tahay inaad dhinaca bidixa ka saartid waa ka saaraysaa kor hoos okay dhinaca midig
okay ayaa leedahay. dabcan saa ujeedaan borderkii waan ku wareejiyey. okay, haddii aan u baahanahay borderka in aan intaa ka badiyo oo dhexda aan border aan u sameeyo, dabcan kaas ayaan ku sameynaya oo seelashan ayaa wuxuu noqonayaa seelal maxaa la dhahayay oo borders leh ayuu noqonayaa. haddii aan rabo in aan istaajiyo oo aan seelkan aan border aan ku xiro, dabcan noocaas ayaan ku xirayaa hadba nooca u baahan tahay. dabcan saa ujeedaan borders badan ayaa nooga soo baxay meesha oo kala duwan, hadba qaabka u baahan tahay ayaa ku sameynaysaa. haddii aa u baahan tahay borderka in aad ka qaadid, dabcan waxaa isticmaali kartaa fontiga ayaa imaanaysaa, no border waa dhigi kartaa, amba control 1 ayaa taabanaysaa, dabcan no ayaa taabanaysaa. saa ujeedaan calaamadii inta aan saa saarnay oo borderka uu ka qaadmaaday, okay ayaa taabanaysaa. sidaas ayaa wuxuu ku noqonayaa mid aan border lahayn. haddaba waxaan u malaynaya cashirkeen inuu ahay cashir aad u xiiso badan. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. intaan ku kulmi doona cashirkan cashir lamid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.